بسم الله الرحمن الرحيم cashirkan waa cashirkii 29aad waxaan soo qaadanay 28 cashir ayaan soo qaadanay cashiradan waxaan dhahnay totally free waaye qof walbo afka Soomaaliga ku hadlayo wuu u furan yahay waxaana maaragtay naga heli kartaan boggeena aan ku leenahay YouTube-ka xirfad.com computers and technology marka cashiradan waxaan dhahnay totally free waaye qof walbo afka Soomaaliga ku hadlayo wuu ka faa'iideysan karaa waxaana maaragtay aan ugu talagalnay dadka bilowga ah oo maaragtay qeybaha hoose ayaan ugu talagalnay si ay u fahmaan basic computers si ay u fahmaan qeybaha hoose ee computerka uu ka kooban yahay si ay u fahmaan si hadhowdii ay u gudbaan qeybaha kale ee koorsooyinka kale ay ugu gudbaan marka qeybtan waa qeyb fundamental ah oo maaragtay qof walbo bilow ah uu ka faa'iideysan karo waxaan haynaa buug qofkii rabo uu naga soo codsan karaa si maaragtay muqdisho meeshuu joogo ayaa loogu geenayaa si uu maaragtay cashirada ugala socdo haddii marka aan u guda galno cashirkeena maanta waxaan qaadanaynaa cloud services wax la ayaan qaadanaa cloud computing ayaan qaadanaynaa what is cloud computing caalamka hadda wuxuu u guurayaa cloud ayaa loo guurayaa cloudka muxuu yahay kambaniyadu waxay isticmaalaan oo maaragtay kambaniga wuxuu leeyahay building weyn ayuu leeyahay ama ha yaraado ama ha weynaado oo kombiyuutaradiisii iyo wixiisii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin si uu maaragtay service uu u bixiyo ama uu dadkiisa shaqaalihiisa ay u isticmaalaan ayuu u baahan yahay ama application haddii ahaa lahaayeen software haddii ahaa lahaayeen waxaasoo dhan waa in uu maaragtay soo gataa kombiyuutaradii dhammaan waxaasoo dhan inuu qarash gareeyaa waaye una maaragtay waxaana ku badanayo haddii kombiyuutarada badan yimaadaan electricity-gu ku badanayo lacagihii electricity-ga ay ku bixinayeen korontadii ayaa badanayso space-ka uu markaas uu isticmaalayo ayaa ku badanayo oo maaragtay meel walba kombiyuutaro badan haddii la keeno waxay u baahan yihiin meel la dhigo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in maaragtay lasoo gado ama la qarash gareeyo marka waxaa marka yimid dad fikiray waxay sameeyeen waxa la yirahdo cloud ayay sameeyeen cloud computing ayay sameeyeen cloud service ayay bixiyaan marka waxay sameeyeen bildino waaweyn ayay waxay ka sameeyeen caalamka Mareykanka iyo maaragtay ayay sameeyeen waxay dhigeen intaasoo kombiyuutar ayay dhigeen haddii kombiyuutaradii marka waxay u sameeyeen waa adigoo kale muxuu ahaa Muqdisho waxaan dhihi karaa hal xaafid oo kale ayaa waxaa laga dhigay data center ayaa laga dhigay marka data centeradaas waxaa la dhigay kombiyuutaro iyo waxaa la dhigay korontadiisa wax walba oo maaragtay service oo qof oo u baahan lahaa kambani u baahan lahaa oo dhan ayaa la dhigay seerfayaashii haddii ahaa lahayn ruutayaashii muxuu ahaa iswiijyadii muxuu ahaa qaboojiyaashii maaragtay ileen waxay u baahan yihiin cooling systemkii oo dhan waxaasoo dhan ayaga ayaa qarash gareeyey ayay sameeyeen marka kambaniyada ayay ka gadayaan marka say uga gadayaan waxay u gadayaan as cloud ayay uga gadayaan qofka waxaa la leeyahay contract ayaa la galayaa waxaa la leeyahay maxaa u baahan tahay meeqa server ayaa u baahan tahay oo aan idin siinaa meeqa computer ayaa u baahan tahay oo aan kaa gadnaa meeqa application ayaa u baahan tahay oo aan kaa gadnaa meeshii adiga applicationno ama serveryaal ama computer aa soo gadan lahayd ayaga ayaa kuu haya bishii ayay xoogaa kaa qaadanayaan waxay ku leeyihiin bisha intaas ka bixi inta aad rabtidna isticmaal marka waxayna ku xiran tahay hadba baahidaada ayay ku xiran tahay haddii baahidaada ay badan tahay lacagta xoogaa way badan tahay laakiin way ka qarash yar tahay markii adiga aad soo gadanaysid oo buildingkaaga aad dhiganaysid kombiyuutaradii iyo korontadii way ka qarash badan tahay aad ayay maaragtay uga qarash yar tahay marka dadkan ayaa fikray waxay sameeyeen cloud service ayay bixiyaan marka waxay kaa gadaan applicationka u baahneed adiga username and password ayaa lagu siinayaa waad gelaysaa shaqaalahaaga saasoo kale waxaa siinaysaa username and password ayaa siinaysaa way ku xirmayaan serviceka markaas ay u baahan yihiin ayay isticmaalaan applicationka markaas ay u baahan yihiin ayay isticmaalaan tusaale ahaan waxaa meesha tusaale ahaan idinku soo qaadayaa youtube-ka oo kale qofka hadda youtube leh youtube channel leh oo video dhigoo kale dadka hadda youtubeyada leh oo videoda soo dhigo oo la daawado waxay maaragtay ay videoda ku upload gareeyaan youtube ay ku upload gareeyaan okay meesha asaga computer gurigiisa hadduu dhigan lahaa intaasoo oo serveryaal u baahan lahaa haddii uu video upload sameyn lahaa asaga uu heesan lahaa
oo maaragtay kombiyuutaradiisa uu gashan lahaa qarash badan ayaa uga bixi lahaa. Tusaale ahaan oo kale dadka YouTube-ka leh, they just upload video and waa la daawadaa. Laakiin ayaga waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn videogaas uu upload gareynayo in qarash badan uu ku baxay. Storage buu u baahan yahay, meel la dhigo u baahan yahay oo maaragtay haddii lacala videogaas uu ka halaabo, YouTube ayuu maaragtay intuu message u qoro ayuu wuxuu leeyahay videogaas aan u baahanahay waa loo soo celinayaa back-up-ki. Waxyaabahaas oo dhan waa YouTube ayaa haysa. Marka YouTube waxay leedahay data center weyn ayay leedahay, Maraykanka ku leedahay. So marka adiga waa upload gareysaa videogii muxuu ahaa waana la daawadaa. Intaasoo keliya ma ahan, kharash ayaa ku baxa. Kombiyuutarro ayaa la geliyaa, storage ayaa la geliyaa, waxaa laga yaabaa inaa billions of video inaa upload gareyso. Marka YouTube adiga lacag ayay kaa qaadaa, laakiin adiga ma ogid waxay lacag kaaga qaadaa marka. Waxay lacag kaaga qaadaa videoga upload gareyso haddii ay ku daawadaan oo kale muxuu ahaa 1,000 qofood oo kale ama 2,000 oo qofood ama 100,000 oo qofood ama million hadduu ku daawado, YouTube xayeysiinay samaynaysaa. Videodaas dadka daawanaya xayeysiis ayaa loo gelinaya. Codka ayaa laga gadaa marka dadka. Marka adiga marka codka ay gado oo xayeysiintii ay dadka gado kambanida ay ka gado, adiga xoogaa ay ku siinaysaa. Lacagtaas oo qofkan uu helaayo oo YouTuberiska ah, lacagta uu helaayo codka ayaa xayeysiinta ay heshay. YouTube kuma siinayso, YouTube jawaabkeeda kaama siinayso. Waxaa waaye waxaa bixinayo qolada oo loo sameeyey xayeysiinta ayaa bixinayso. YouTube-na qayb ayay qaadanaysaa, adigana qayb ayay ku siinaysaa. Marka the more views ay hesho, the more lacag la helo waaye. Markii dad badan ay ku daawadaan, YouTube lacag badan ay helaysaa. So marka adiga xoogaa ayay ku siinaysaa. Marka saas waaye. Marka ana taas uma socdo, laakiin waxaa isticmaashaa adiga dadka hadda YouTube-ka isticmaalo tusaale ahaan usoo qaatay, waxay isticmaalaan cloud computing ayay isticmaalaan. Cloud computing, cloud-ka ayaa lagu hayaa videoyaashooda. On cloud waaye ayay ku jiraan. Back-up-ki kama fikiraayo, haddii security-gii kama fikiraayo oo videogii haddii maaragtay wax lagu sameeyo kale kama fikiraayo. YouTube ayaa laga rabaa waxaas oo dhan, marka YouTube ayaa laga rabaa. So marka cloud computing hadda ayaa loo guurayaa. Qofka kambanigii meeshii uu qarash gareyn lahaa. Marka faa'iidada cloud computing uu leeyahay costiga kow, qofkii intaasoo computer u soo gadan lahaa uma baahna. Just bishii ayuu xoogaa iska bixinayaa. Haddii security-gii haddii oo qaladaad uu ku dhaco xagga security-ga hacking lagu sameeyo kale, waxaa laga rabo waxay tahay qolada muxuu ahaa cloud ku siisay. Kambaniyada cloud-ka bixiyana way badan yihiin, waa idin sheegi doonaa. Haddii ay maaragtay back-up haddii maaragtay videoyashaas ay ku dhacaan ama maaragtay dhib uu ku dhaco kale, back-up ayay hayaan oo ayaga waxay leeyihiin building 2 billion camal leeyihiin. Building hadduu gubto kale, building kale ayay kaaga helayaan. So marka waxaana maaragtay bixiya cloud computing way badan yihiin. Kambaniyada bixiso waxaa kamid ah Microsoft Azure ayaa kamid ah, AWS-ka oo Amazon ah, waxaa Alibaba ayaa kamid ah. Kambaniyadu way badan yihiin oo bixiya cloud computing-ka oo maaragtay aad bishii aad ka gadanayso. So marka haddii Soomaaliya oo kale haddii dadka kambanida leh oo kale way isticmaalaan oo kale, kambanida qaar kale isticmaalo way soo gataan, waxay gataan serveryaashii ayay gataan, applicationadii ayay gataan oo maaragtay bishii iyo xoogaa iska bixiyaan. Hadda ayaan dhexdaas waxaan arkayay Muqdisho in laga sameeyey data center in laga sameeyey aan arkayay YouTube-ka ayaan ka daawanayay qolo bixisa oo maaragtay bishii xoogaa iska bixinaysa oo kambaniyada kale way u baahan yihiin oo kale. Kambaniyada qaar oo kale meeshii ay maaragtay kombiyuutarro badan ay soo gadan lahaayeen inay maaragtay ay isticmaalaan. Halka cillad uu qabo waxay tahay waxay hayaan oo keliya muxuu ahaa oo xogtaada dhan ayaa la hayaa oo taas keliya xoogaa problem ka jirta. Taas naftigeeda waa lasii kala qaadaa oo waxaa jiro private iyo public waa maaragtay gudaha u geli doonaa insha Allah. Hadda waxaan baranaynaa what is the cloud. Cloud muxuu yahay? In hadda cloud-ka loo guuraayo caalamka u guuraayo inaan fahanno waaye. Marka waxaa jiro saddexa ugu muhiimsan oo ugu populaarsan waa infrastructure and software and platform. Saddexdaas ayaa infrastructure as service and software as service and platform as service. Saddexdaas ayaa hadda ugu caansan. Marka wuxuu ku leeyahay cloud service-ka, cloud computing wuxuu ku leeyahay cloud computing is a model for providing, waa qaab model ah oo bixiya oo purchase of premises. Waxaa maaragtay ay kaa gadayaan off premises ay kaa meeshii off premises waxaa laga wadaa computing service. Off premises computing service. Meesha adiga aad maaragtay gurigaaga ama kambanigaaga alaab soo dhigan lahayd, off premises waxaa la rabtaa meesha aad alaabtaada dhigan lahayd
kambaniga meeshuu alaabta dhiga lahaa ayaa premises lahaa, laakiin off premises marka la dhaho uma baahnid inaad maaragtay waxay ka wadaan inaad maaragtay servayaal aad soo gadatid, uma baahnid. waxaad gadanaysaa oo kale computer service oo off premises ayaa gadanaysaa, oo ayaga ayaa ka gadanaysaa over the internetka ayaa ka gadanaysaa. They just give you username and password, bishii ayay lacag iska bixinaysaa, username and password ayaa lagu siinayaa. waxaad isticmaalaysaa marka servayaashoodii iyo kombiyuutaradoodii iyo maaragtay waxaas oo dhan ayaa isticmaalaysa. Wuxuu ku leeyahay marka in brown terms cloud computing service, maaragtay cloud computing service-ka is a service that you purchase oo aad gadanayso oo set up your own muxuu ahaa ama aad adiga set up garaysanayso. waa soo gadanaysaa kadib adi ayaa set up ku samaysanaya, computerkii ayaa soo gadanaysaa, haddii aad u baahan tahayna adi ayaa set up ayaa samaysanaysa ama ayaga ayaa kuu samaynayo. So marka haddii aad set up samaysanaysa applicationadii adaa ku shubanayo, waxaas dhan aad u baahan tahay adaa ku shubanayo, computerka unbaa ka gadanaysaa. computerkii oo virtual ah ayaa gadanaysaa, waa isticmaalaysaa, by which you can dynamically expand. haddii aad rabtana waa weynaysan kartaa. contractiga ayaa waxaa samaysanaysaa, ayaa waxaad leedahay igu dara, baahidaada hadday badato waxaad dhihi kartaa expand igu sameey oo maaragtay qarashka ayaa laakiin kugu badanaya. contract competition oo storage capabilities ma jirtaa. haddii storage badan aad u baahato oo marka hore waxyar ayaa isticmaalaysay, more customer ayaa heshay oo kambanigaaga wuu weynaaday, waxaa u baahatay storage weyn ayaa u baahatay, so marka ayaga ayaa kasii gadanaysaa oo waxay maaragtay lacagta ayay kugu kordhinayaan. marka waxay ku xirantahay marka wuxuu ku leeyahay storage capabilities on as needed, saa ugu baahan tahay basis needed basis, wax sida qaabka ugu baahan tahay. marka wuxuu ku leeyahay the National Institute of Standard and Technology oo loo soo gaabay NIST defines. marka kambanigan waa agency-gan ayaa wuxuu qeexayaa marka several components of the cloud computing service. waxaa waaye resource allocation is available through rapid electricity, waa qaadan doonaa resource pooling iyo waxaa kaloo samayn kartaa u gadan kartaa resource pooling, waa gadan kartaa automated service charge over through on demand service, on self service kan waa gadan kartaa. so marka kuwaas waa gadan marka wuxuu ku leeyahay the capabilities of the cloud system. wuxuu ku leeyahay marka system is a footprint and overall service refers a broad network access mujeda. wuxuu ku leeyahay the provider's ability to control customers use. so marka dadka providerka qoladan providerka oo bixisa cloud computingka waxay awood u leeyihiin inay controlaan customer use, sida inta uu isticmaalo qofka customerka ah. marka adi aad gadato waxay ku sameynayaan controlayaan, waxay ku leeyihiin intaas isticmaal, intaasna iska bixi ayay ku leeyihiin. marka wuxuu leeyahay use of resourceska isticmaasha through metering is referred as a measured service. way ku cabirayaan, waxay ku leeyihiin tusaale ahaan oo kale, waxay ku leeyihiin oo kale bishii waxaa isticmaashaa intaas isticmaal ayay ku leeyihiin, kadib intaas iska bixi, $100 bixi, intaas isticmaal, $200 bixi, waa ka badsanaysa, intaas isticmaal. so marka through measuring ujeeda macnaha through metering ayay kugu xisaabinayaan, meter ahaan camal ayay kugu xisaabinayaan. so marka saddexdan ayaa jirto: infrastructure as service, software as service, platform as service. kuwaasna u tegi doonaa mid ayaan qaadan doonaa, laakiin maanta fahan cloud muxuu yahay, cloud service muxuu yahay ayaad fahantay maanta, inuu yahay in laga gadaayo kombiyuutaradii muxuu ahaa cloud, adoo cloud ahaan lagaga gadaayo, adoon maaragtay u baahnayn in maaragtay aad soo gadato kombiyuutaro aad gurigaaga ama kambanigaaga aad dhigato, adoon u baahan ayaa waxaad isticmaalaysaa computerkii ama applicationkii ama waxaa u baahneed through internet ayaa u isticmaalaysaa. so marka cloud waxaa loo dhahay cloud micnaheedu waxaa waaye waa caadka ayay ka wadaan, laakiin ma ahan caad, waxay ka wadaan laakiin internetka ayay ka wadaan. internet ayaad gelaysaa oo username and password ayaad ku gelaysaa, kadib waa isticmaalaysaa. so marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa oo ku saabsanaa cloud computing. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.